kulankan wadatashiga ah maanta lagu qabtay magaalada Baydhabo isla markaana lagaga hadlayay qabi qoraalka siyaasadda iyo xeerka qaran ee deegaanka waxaa ka qayb galay madax ka socotay dowladda federaalka Soomaaliya wasiirka wasaaradda deegaanka iyo duurjoogta wasiir ku-xigeenka wasaaradda agaasimaha guud ee wasaaradda iyo khubaro ku takhasusay arrimaha deegaanka agaasimaha guud ee wasaaradda deegaanka iyo duurjoogta dowlad goboleedka Koonfur Galbeed Isaaq Maxamuud Mursal ayaa marka hore ka hadlay shirkan iyo muhiimadda Koonfur Galbeed uu leeyahay meelun miskoy masakin dooin falaanay masafadnin in shir markaasaytii muhiim ah wasaaradda beeraha iyo duurjoogta Koonfur Galbeed Soomaaliya oo markaas jeedshii in wal la kadar qabiyo qoraal siyaasadda heerka deegaanka Soomaaliya isla marhaantiina ku qeyb galeen wasiir wasaaradda shalduun hay'adda oo runtii arrimaha qoseeya iyo ururada bulshada maamulka iyo qeybaha shalduun ururada dawliga iyo hantiyahanaba walina farxadnin inuu si sheegna maadaama deegaanka iyo isbeddelka cimilooyinka kuma tahay waajibada kuma tahay wasaaradda beeraha ee maamulka Koonfur Galbeed igmadi way faa'iidii farxadnin inuu walka darsadahayna masano kala qeyb galaan shir walka darsado Ahmed Yusuf Ahmed oo agaasimaha deegaanka ee xafiiska ra'iisul wasaaraha Soomaaliya oo kulanka goobjoog ka ahaa ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya markii ay aragtay inuu jiro gab weyn oo deegaanka go'aansatay in laga shaqeeyo siyaasadda deegaanka dalka iyo shuruucdeeda especially sectorska gaarka maxaa dhaqaalaha Soomaaliya ku xiran yahay kuwaas oo u baahan shuruuc gaar ah oo environmentiga in lagu maamulo siyaasaddan waxay u baahan tahay ama ay cadeynaysaa ama hoosta ka xariiqaysaa roolka iyo responsibilityga qola kasta oo environmentiga ama deegaanka dhinac ka soo gelaysa sida ay tahay inay ay uga qayb qaataan policyga national levelka waxay lagu apply gareyn doonaa haddii la yiraahdo dalka Soomaaliya oo dhan iyadoo foundation noqon doonta environmentiga deegaankeena haddii ilaahay yiraahdo dhammaan maamul goboleedyadana qaybtoodna hore oo wada tashanay qaybna waa anaga maanta ka tashanayna qaybta dhimanna haddii ilaahay yiraahdo waan ka tashan doonaa wasiirka wasaaradda deegaanka iyo duurjoogta Koonfur Galbeed Cali Isaaq oo shirka wadatashiga ka furay Baydhabo ayaa sheegay in muhiim ay tahay in la helo shuruuc dhameystiran oo deegaanka lagu ilaalinayo runtii wasaaradda geedka uga fursad helay nasiib helay inay meel raay gobolada gobolkan Horyal iyagoo leh hadallo arrimo siyaasadeed la kala fadi ama la kala fadi wadankan Soomaali samay la raay moon ku jeysana fikradeen iyo meel raay aqoontaan ku jeysan yageek fursadaas sunna siyaasadda oo deegaankan wadankan la kanaga way buuha umum way ba kuma dana maadaama reer Koonfur Galbeedna wadanka Soomaaliya kuma dana way balana fikradan anigu ka darsana meel raay walaay qabay quraanka meel haboray anigu ka daran fikradan ka daran markii meelo loo qadar hata naftiya Soomaaliya wiinta gobolada shalduunin gobolada naftiya way bashaleeyeen Abdullahi Nuur Aadan TV ka caalamiga Saab TV Baydhabo